بسم الله الرحمن الرحيم welcome back markale iyo cashariyada taxanuun ah waxaan ku jirnaa chapter 5 ama cutubkii shanaad oo runtii xiiso badan lahaa waayadaan ku jirnay haddaan sii socodsiino casharadii noo socday waxaan rabaa inaan sameeyo si oo kooban summary wixii aan soo barnay chapter 5kii si guud ahaan chapter 5 wuxuu ka hadlaa loo yaqaano probability-ga ama waxa uu naqaano ixtimaalaad carabigiisa ama waxa uu naqaano soomaaligiisa itmaalka just waa suurtagalnimo waa marka mostly qaybtan waxay badanaa ka hadashaa in qofka bini aadanka ah yani oo suuraysan karo ama uu sheegi karo ama uu qiyaasi karo suurtagalnimada uu ku dhici karo shay tusaale aan soo qaato tan waxba rabtaa inay dhacaan masalan waxaan dhihi karaa shaygaas oo kale inuu dhaco waa boqolkiiba 90 waxaa ka wada macnaha waa janiska waa badiya مثلا shaygaas inuu dhaco kale suurto gasho waa boqolkiiba 10 macnaha waa yar inuu dhaco marka mostly probability-ga waa maleynayso shaygaas waxa ku dhici karo ama hadii kana waa chance-ka uu ku dhici karo yani event shay aan weli gaar mustaqbalka marka shaygaas mustaqbalka la gaari doono maxay inuu shaygaasi suuragal noqdo waa boqolkiiba 90 boqolkiiba 10 boqolkiiba 40 and so on laakiin markii xilliga la gaaro resultkiisa waa ama 0 ama hal haddii wixii ay suuro gasho waa boqolkiiba 100 waa saan waa boqolkiiba 100 asaas ama hal qora boqolkiiba 100 asaas intaas qayb waa 1 macnaheedu waxa ka wada boqolkiiba 100 markii suuro gasho haddii uu shay lacala suurtageli waayo waa ever boqolkiiba waa ever marka probability marka markii la tacriifinayo ama definekiisa dad badan waxay ku qeexaan just waa mathematical approach waa qaab xisaabeed oo u dhaxeeyo 0 iyo 1 0 wuxuu ka wadaa wixii aad saadaalisay before the event wixii aad saadaalisay markii la gaaro it can be 0 wixii ma suurtagelin ama it can be 1 waa suurta gasho markay suurta gasho waa boqolkiiba 100 haddii la suurta gasho boqolkiiba eber waa marka probability guud ahaan waa xisaab waa qaab xisaabeed oo loo yani u dhaxayso 0 ilaa 1 0 waxa ka wadnaa hadduu shay suurta gali waayo 1 waxa ka wadnaa hadduu shay suurta galo maxaa u dhaxeeyo qiyaasaad marka probability-ga waa chance-ka uu ku dhici karo shay ama is a chance that can occur an event hadii karna okay fine inta guud ahaan marka shaxdan meesha ku taal markaan fiirino waa structure-ka ama qaab dhismeedka loo sameeyo probability waa salahan probability wuxuu leeyahay approaches ama hanaan ama qaab loo tixraaco leeyahay probability waxay u qaybsantaa laba qayb marka inay tahay objective ah oo la yaqaano cad midna tahay subjective ah oo aan la aqoonin oo qofka yani awoodiisa iyo experience ku qeexi karo markay objective tahay objective-ka waa in la sheegaa qiyaasaad oo shay ku dhici karo ayadoo loo marayo classical iyo empirical ama in la sheego waxyaabo dhici karo maxay ayadoo loo marayo subjective aan ku celiyo probability markii la soo saarayo laba qayb way inuu objective ama subjective objective waxa laga wadaa shaygan aan qiyaasi soo saar rabo waa shay objective waxa loo yaqaana waa inuu shayga leeyahay macluumaad hordhaca laakiin subjective-kaasi ma lahan tusaale soo qaadatan waxaa la qabtan hebel shakhs hebel taqaano مثلا arday hebel imtixaankiisa inuu baaso noo sheeg yani chance inuu baas karo marka laba mid waa inuu isticmaalo objective ama subjective kan waxaa isticmaalo ardaygan imtixaankiisa qiyaasayo haddaan garanayo objective way haddaan la garanayninna subjective way مثلا waxaan ardaygan imtixaankiisa inuu baaso boqolkiiba 90 waa macnaha waa chance aad sare waay si ku ogaatay yani arday dadaal badan maskax furan xisiin aan gambinin macallimiinta ixtiraamo wax dhageysto wax qoro imtixaaniis horna fiicnaayeen imtixaanka imaan doona waa boqolkiiba 90 baas kaas objective macnaha waa shay la yaqaan xogtiisa dambe laakiin subjective kaas arday mid qaanid maanta ku wareyso waxay ardaygan imtixaanka inuu baas boqolkiiba 70 waa second baas qiyaas marka haddii dhacdo dhici doonto aan qiyaaseeno without information
subjective way haddii laakiin loo cuskado waxaan qiyaasayno xog hor loo hayna objective way marka objectivekaas waa classical iyo empirical classical waxaa laga wadaa shayga aan qiyaasayno inta uu ka yahay oo loo qeybiyo guud ahaan intuu ka yahay kana waxaa weeyaan wixii soo noqday ayaa isticmaal doonaa kan waxaa waaye waxa loo haysto isticmaal bis waa iska qiyaasay waa iskaga riyooday waa iska sameeyey and so on marka maanta haddaan darsi maanta aan guda galno yes darsiga maanta waxaan horyaala waxaan naqaan waxay qaybtaan inaan maanta galno waxaan naqaan ruleska marka ruleska markaan joogno arsi qaybtaan joogno waxaa u naqaanaa qaybna waxaan u naqaanaa additional rule qaybna waa multiplicational rule waxaan ka bilownay additional rule isu geynta sharciga waxaa inoo dhiman qayb aan u naqaano multiplicational rule sharciga isku filnaanta okay markaan rabo inaan ka hadlo additional rule sideedaba markaa dhis addition waxaa u baahan tahay inay haysto ugu yaraan 2 qaybood maxaan ka wadda marka haddii la rabtan waxaa isku dar waxaa u baahan tahay in qayb loo geeyo qayb kale hal qayb kaliya ma soconayso okay markii addition waxaa u baahan ku inay hayso 2 event marka dhacdo iyo dhacdo chance مثلا inaa helo مثلا inuu shaygaas dhaco markaas u geeyo boqolkiiba meeqa waa okay halkaa markay tahay marka additionka waa 2 qaybood marka 2 qaybood inaan isku daraayo dhacdooyin wadaag leh iyo dhacdooyin aan wadaag lahayn dhacdooyinka haddii wadaag leeyihiin kanoo kale waa مثلا fiiri eventigan oo kalarkan guud green ama iskale eventigan oo greenka maxay wadaagaan this one qaybta marka waxaa u naqaan maxay qaybtan waa common one markaan fiirno qaybtan qayb ku leeyahay qaybtan qayb ku leeyahay maxaa isticmaal rabnaa addition waa inaan isku darnaa marka 2 event marka 2 dhacdo laakiin common leh dhacdadan markaan fiirno iyo tan markaan fiirno maxay wadaagaan common ay wadaagaan taas mid waa marna waxaa isticmaal rabnaa inaan isku darno informationka ama suurtagalnimada ku dhexda 2 event laakiin aan common sida common fiir kanoo kale waa a event b kanoo kale waxaan dhihi karnaa waa 2 event aan common lahayn wax ma wadaagaan kan a na gooni waayo b na gooni waayo laakiin waxaa isticmaal rabnaa additional rule marka additionka see u isticmaalnaa markaan haysano 2 event aan common lahayn iyo markaan haysano 2 event oo common leh markaan ka hadlay additional ruleka wuxuu lahaan doonaa 2 sharci loo isticmaal doono marka aysan lahayn common iyo markay common leeyihiin okay taa marka waxaa jirta waxa loo yaqaan concept weyn oo runtii aan rajeynaya inaan sharaxay laakiin aan ku celiyo concept waxaa ka wadna مثلا halkan waxaa ku yahay erey oo mar kastaba aan sheegno ereyga waxaa loo yaqaan exclusive yes mutually exclusive xaggan waxaa ku yaalo not mutually exclusive intaas haddaa fahamto then bahasha waa fahamtay yes marka maxaan ka wadnaa marka 2 concept okay horta waxaan rabnaa inaan fahmno markay tahay additionka waxaa u isticmaalnaa calaamad ahaan waxaa u naqaanaa probability-ga aan ku heli karo a or b calaamadan waxaa u naqaanaa addition ortaas cali waxaan dhihi jirnay itixaad soomaaligiisu waa midow englishkiisu waa union marka unionka waxaan ka wadnaa حتى لقد هافهم ينو هذا مدو ما كنا مدو هذا مثلا حوجين آمدين ما حسب يعني حوجية بلاس حوج هاي مرك أرياس حوج شيء يونيون كا حوج فمزين هاي نتاعي مدو مرك أرتان يونيون وبلاس حق محنو يال addition أيش هكذا يونيون ما حسب يعني A union B ولا غيره مرة كان حديث كنا A or B or سكمت إنها ترى or union
waa same okay marka additionka maxaa isticmaalnaa probability-ga A or B ama maxaa dhihi karnaa probability of A union B waa isku mid waxaa loo qoraa calaamad ahaan okay laakiin maxaa ku xigay marka maxaan ka wadnaa waxaan rabnaa jaaniska suurtagalnimada aan ku heli karno event A dhacdada A or maxaan ka wadnaa haddii la waayo waay waxaan rabnaa B tusaale waxaan ku dhahay bax waxay igu yartaa xasan ama xuseen maxaan ka wadnaa marka waxaan ka wadnaa xasan noo yeer haddaad soo hesho xuseen u baahni xasan noogu yeer or haddaa xasan weyso laakiin xuseen noogu yeer midkaa keenti waa sax laakiin maxaan diidaynaa labada ma ogolni because or way okay lacagtaan qaado noo soo iibi qalin blue ah or maxaa way haddaa soo weyso qalin balaag ah balaag keentay waa saxan tahay blue keentay waa saxan tahay laakiin labada ma rabni okay marka haddii marka eventii marka oo como hadduu jiri lahaa qalin isku wato madow iyo blue ma qaadan karno markaas waxaan rabnaa eventiga waxaan rabnaa waxaa u baahanay qalin madow ama blue laakiin maxaan diidnay madow iyo blue ma rabno fine maxaa wadna marka hadduu jiro qalin qaybna ka ah madow qaybna ka ah blue wuxuu leeyahay common blue iyo black waxay leeyihiin common tusaale ahaan eventigan xaggan taalo ilaa intaas kana khaas u leh ee khaas u leh مثلا intaana مثلا biya khaas u leh laakiin intaan oo gudaha ku jirto intaan gudaha ku xaas kale A and B oo common waa macnaha fiiri midkaan cagaarka ah qaybtaana jaallo ka yahay midkaan kalarkan guduud amalan barbalkana marka qaybtaan waa jaalle laakiin waxaa wadaago kana qayb ku leeyahay kana qayb waa common marka hadhow haddii in case lagu diro waxaan rabnaa kalarkan ama kalarkan qaybta dhexe ma rabno nothing because qaybtan common ma rabno waxaan rabnaa inaan helo kalarkan ama kalarka laakiin maxaan diidnay both jaalle ma rabno waxaan rajaynaya in la fahmay conceptiga aan u socdo iyo meeshaan ka duulayo inay tahay or waxaan ka wadnaa ama yes okay so marka waxaan rabnaa probability aan ku heli karna maxay A or B equal to what waxaan ku heli karnaa janiska uu yahay A plus janiska uu yahay B markay tahay markaysan eventiga ee common lahayn waxaan ku heli karnaa maxaan ka wadnaa kanoo kale tanoo le qaacidaan janiska A intaan waay janiska B intaan waay laakiin in this case markaan joogno waxaa kala duwan qaybta kore A iyo B no common Ana gooni waay Bna gooni waay laakiin qaybta waxaan noqonaa qaybta waxay leeyihiin common Ana intaan waay tusaale ahaan kan A waay tusaale ahaan kan B waay laakiin intaan iskale A B iskale halkan markaa soo saaray qaacidadeeda way ka duwan tahay tii hore waxaan isticmaali doonaa qaacidadan markay tan tahay hala probability maxay A or B markuu common jiro janiska A plus janiska B oo laga jari doono maxay janiska A iyo B marka inaad fahanto laba qaacido waxay kala duwan yihiin okay waxaan rabnaa anaga A ama B laakiin maxaan diidnay labada ma ogolni see soo saarnay hadduu marka this case du halaado common jir lahaa janiska A plus janiska B oo laga jaray A and B ka maxaa ka wadnaa A and B dan intaan waa kan qaybtaan waa qaybtaana ka jaraa si goona ma rabno maxaa u dhexaysay minus hadhow maxaa soo si nadiif waxaan soo helnay ama A and B laakiin maxaa ka saarnay common code because waxaa u socdaa waxaa rabaa inaan soo helo A oo gooni ah ama B oo gooni ah laakiin maxaan diidnay wax u dhexeeya ma rabno common code ka jara waa ka tuuraa
marka okay xagga marka imaado fiiri xagga marka imaado ma soo kordhay okay haddii hataa kan fiiri kan oga fiiri intaan ma jiro common ama wadaagaan maya in this case hataa haddaan ka jaro aanu laga jaray a and b ka markaa sameey because intaan waa zero if hataa muuji haddaan muujiyo hataa intaan ma jirto waa zero marka zero ma qorayso tuure laakiin this case wuu jiraa waxaan rajaynaa in fahmay labada formula ee isticmaal rabno markay tahay additional rule-ka a or b aan rajaynaa in fahmay okay marka xagga marka imaano ereygan oo erey common aan fahmi karo waa si guud u sharax si gaar ah u sharaxo mutually markaan fiirino waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha commonka ah exclusivena diidmo waa eventina dhacdada waa marka waxaa eventyada waa in commonkoodu kala baxsan in this case kan waa a b wadaag malaha ana gooni waa bna gooni waa laakiin haddaa ka bilaabo not ka bilaabo fir sida kan oo kale maxaan ka bilaabay not maxaa ka wadaa ma ahan commonkoodu hee eventyada kuwa kala baxsan waxaa ka wadaa common ay leeyihiin tusaale markaa isticmaalayo مثلا fiiri marka soo sheegnaa markaa badan kale luqadda Soomaaliga markaa isticmaalayo diidmo ogolaasho waayo ogolaashana ogolaasho waayo ogolaasho diidmo waayo diidmo ogolaasho diidmo waayo waagii Englishka barajin schoolka waxaan jiray negative positive negative positive negative positive negative maxaa qodna marka haddaan isticmaalo laba diidmo ogolaasho keenaysaa laba ogolaashana ogolaasho waayo ogolaasho diidmona diidmo waayo diidmo ogolaasho diidmo waayo tusaale waxaan dhahay inaan banaanka bixin waan diiday waan jooga ogolaasho waayo si kale oo sheego ina imtixaanka gelin soo diid maaha ina imtixaanka gelin soo diid maaha ina imtixaanka gelin waan diiday waa galawa ogolaasho maxaa isticmaalay negative you see ina imtixaanka gelin diidmo waa ina imtixaanka gelin waa iska diiday maxaa ka wadaa imtixaanka gala positive waa marka waa diidmo ogolaasho waa maxaan ku saaray ogolaasho waa fiira in imtixaanka galo ogolaashamo waa ogolaaday imtixaan gala waa positive waa okay in imtixaanka gelin waa ogolaaday maxaa isticmaalay diidmo ogolaasho imtixaan ma galay waa in imtixaanka galo ogolaasho waa waan diidayna oo positive iyo negative imtixaan ma galaa diidmo waa anyway maxaa ka wadna marka waxaan ku keennay commonkooda uu kala baxsan yahay maxaa ka wadnaa kan ana gooni waaye bina gooni waaye laakiin in this case maxaa dhacday ma ahan midkan oo diidmo ah iyo kanoo diidmo isku dhexeen waxay noqdeen ogolaasho marka inay common leeyihiin oo maxaa leeyahay marka ma ahan kuwo commonkoodu hee uu kala baxsan yahay يعني common اللي معنا كذا anyway هذا mutual not كبلاو common اللي هن هذا كبلاو إنه ما لا common مركب common جيرين قاعدة وين هذا قري مركب common جيرنا قاعدة وين هذا قري اسمعوا استعمال بوك واستعمال or مع استعمال كنا علامة union رجعنا إلا فهمي قاعدة جودهن هي ماشي أصعون yes حاجة من الحياة تسامك إنه يعني تصالح أو الفهم كره تصالح وكان الله يا بدنا وكان الله إن additional rule كان الله سجينت additional rule example أوكي حاجة وحنو يا الطرق كويس common يعني إن phenomena قف كس فهم كره بدنا حرتك فعلا لكن أنت عادي فاهم كنا حلو هو سماه maybe نفهم لقاه anyway طرق أنا خانو
تقريبا وحكم سميسان كونتن إلى حبة 52 كادس وكونتن إلى حبة ترب كاسوي وحاوه اليو وحاول نقانا جوكر هذه مرة قال حكى له لو بدشت لكن عادي وكونتن إلى تربوا كونتن إلى ترب كافيرنا هل كي قاب واستحتون حبة عن صون التربة وحالات تقريبا حالات سمية وحول عندنا أفر كاتيجوري قاب حاول نقانا يلا هات مid waxaa ku yaalo calaamadan mid waxaa ku yaalo calaamadan mid waxaa ku yaalo calaamadan yes mid haat waay haatkaas 13 waay 13 xabo waay waxaan dhihi jirnay speak crown hiding iyo diamond la xasuustaan waa speak 13 xabo waay crownka waa kana crown 13 xabo waay iyo crown speak hiding iyo diamond waay afar qayb waay oo kii 13 marka 13 xabo waxay isugu jiraan 10 xabo tira iyo kaale koowaale labaale saddexaale afraale shanaale lixaale toddobaale sideedaale sagaalaale tobanaale 10 xabo number ah waxaa markii kadib waxaa weheliyo Q iyo K iyo J waa 10 xabo because 13 xabo ee kan kaliisa haatiga 10 xabo waa numbers waay waxaa raacsan xuruuf J K Q waa gulaan raani iyo baashi kan sidoo kale waa 13 kanna waa 13 kanna waa 13 maxay noqotay kontinab yes 52 saddex kontinab marka waxaan amarka hadafkii xawayaan marar qaar waxaan dhici karta inaan u baahdo shaygan ama shay lagu xiliyo common marar qaar maybe okay marka fiirin aan fiirin wuxuu noqon doonaa suurtagalnimada aan turub ku dooran karo si cashwaai ah turka inaan fiirin turka baandhay kadibna mid kala bax marka turka baandhay 52 waay baandhay mid kala bax marka muxuu noqon doonaa jaaniska and probability aan ku heli karo turubkaasoo si cashwaai u doorta from standard card waxaan rabnaa turub inuu noqdo king mid kay ku taalo ama hearts wadna ah turubkaan dooran doono hadduu noqdo king waa saxsanaya hadduu noqdo haatana oo kale inta kale ma ogolni maxaan diidanahay wixii soo haray dhan kontanaa turub qaado baandhay kadib mid ka baxso muxuu noqon suurtagalnimada ama chanska aan ku dooran karo turub ay ku taalo ama hearts ama king marka fine ka markaan galno okay haatka waa ka marka haatkan waxaa ku jiro iyo kaale labaale saddexaale ilaa 10 kadibna king kadibna Q kadibna J kana sidoo kale isbikan waa yakaale labaale ilaa maxay K Q J kana sidoo kale waa kow labaale saddexaale ilaa K Q J saddex xaraf iyo xawaaye number caadiga kan wuxuu leeyahay 1 koowaale labaale ilaa 10aale kadibna K J Q okay fine marka yakaalaha wuxuu noqday hal xab waa haat waay min asbig waay min crown waay min hiding waay waa afar xab turba labaalihi hal xabo waa haat hal xabo waa asbig hal xabo waa crown hal xabo waa hiding tusaale afarta xabo turubka yakaalaha labana waa madow labana casaan waay daaratan kor waxaa kaga qoran calaamadaha kaga qoran okay marka waxaan rabaa muxuu noqon doonaa chance aan ku dooran karo king hadduu king yahay waa king waa rabaa ama waxaan rabnaa heart kinga marka imisa kinga waa kana k waa boqorka aniga king oo heart waa rabaa king osbig waa rabaa king crown waa rabaa king waxaa rabaa idin laakiin waxaan kama rabo okay waxaan rabaa king afartan xab waa qaadan karaa ama hearts yes waxaan rabaa
wuxuu noqon chance waxaan ku dooran karo king or heart macnaha marka say u qoraa marka waxaan dhihi karnaa probability-ga aan ku dooran karo king or heart equal to what inta kingiga plus inta heartiga laakiin maxaa ogoleen waxaan ogoleen oo laga jaray turubka kingiga ah isla markaan hearti marabno waxaan rabnaa inuu king yahay ama heart yahay laakiin wax u dhexay marabno okay probability-ga oo ku yahay king or heart equal to what imisa kinga marka tusaale ahaan waxaa kinga 1 2 3 4 afar xabo king waay out of konti labo plus imisa hearta marka hearta inta hearta hearta meeqa waay 13 waay 13 xabo waa heart waay out of konti labo xabo minus marka imisa kingin ah heartna intan waa heart intan waa king waa halka xabo keliya ayaa wuxuu noqday mana heart waay mana king waay only hal turub ayaa wuxuu noqday king or heart out of konti labo xabo then maxaan samayn jirnay maadaama chance uu ku yahay king or heart equal to what maadaama hoose isku mid yihiin hal soo hooseeya korna waxaa leedahay afar lagu daray 13 waa 17 laga jaray hal waxaa soo baxayo 16 oo loo qaybiyey 52 waxaa soo baxayo maxay waa 0 waxaa soo baxayo 0.3077 markaan ka dhigi kan boqolley waa 30 boqolkiiba okay kan marka waxaa ka wadnaa haddii turub lagu siiyo 50 xabo oo la baandheeyo turubkaas inaan ka doorto turub hal xabo ka doorto halkaas inuu yahay ama heart ama king 30 marka boqolkiiba 70 waxaa laga yaabaa inaa misgarayso marka waxaan dhihi karnaa intaan sameyn ka horba tijaabada waxaan naqaanaa janiskeena haddii 52 cards kontina turub la baandheeyo ee turub kala baxo turubkaas inuu noqdo king or heart boqolkiiba 30 waaye laakiin inaa waayo boqolkiiba 70 waaye waatan idoo qoran qofkii baahan oo raaci karaa laakiin sharaxaad guud waa kaasa marka waxaan rajaynayaa in la fahmay cashirka maanta waa mahadsantihiin thank you so much